أنا ما كل حسابتي معي ليك أنا ما كل حسابتي معي يعني أدي إلهي sax waay marka su-aasha waxay taagan tahay ma gabadhan kamaalow adiga ma ogeed oo inay xaas tahay ama lasoo furay ama ilma ay leedahay ma ogeed wallaahi oo bilaahi oo tallaahi aniga ma ogeen sidoo kale sheekadan hadda in aan lasoo fadhiisto anoo wax walba oo xaqiiqsaday waxay noqotay in anaga raadino xogyaal badan rasmi ah haddii ay noqoto gabadha familkeeda baryahan dhan anaga wallaahi ba midi كمال أول قيامي مسكين سبحان الله سبحان الله سبحان الله كتاب جامع وقعنت صاري كمال لأن يراد هاد الجرتاس كيل عليهم وحيابها نقلا كل عكرة هو يردانو علمي هذا إنكريسة كل يعني مركي هور فيديو جي هرواني كشيء أي مرة هيو حبال السحري شك وين بقى يقول شري يعني جا إني قبل أسبين شيء جسو maanta qoysas badan baa isqabsaday oo aan heshiis ahayn hadday ninkii la heshiis ahayn maaha macnaheeda in ilmaheeda inkirto markhaatiyaal badan baa soo baxeen oo la wada arkay kuwii arooskeeda joogay baa hadlay labada maanta kamaal baa dembi la saarayay laakiin hadda ayada inay dembiga leedaha la ogaaday ina bacda danna itmaan la yiri moogta daniga ma fiicna waa kan wiilkii oo ka dhaartay sheegayna in gabadhii ilmaheedii ay qiratay inay dhashay dad badan oo Sweden la jooga waxay sheegeen qoyskaas inay wada diganayn dadka qaar waxay yiraahdeen ninkaas gabadha ma qabin Allahu yaclam ilaahay baa naga og waxa dhexdooda yaalay laakiin gabar xanaaq waxaan ku samaysay inay u eg tahay waa la arkaa inay kala hadashay markii la joogtay Kamaal hani waxay tiri aniga ilmo ma dhalin ninka Cabdisalaam la yiraahdana ma aqaan shaqana kuma lihi laakiin waxay cadaysay wareysiga dambe inay ninkaas ilmo u soo kaxaysay oo sharciga ku soo kaxeeyay iyadana ilmahana ay hooyo u ahayd waxa cajiib 20 sano ka hor maadaama dadka qaar ay ku doodayaan ilmahaas ma dhali karto dhowr 20 sano ka hor haduu soo dhoofiyay ilmahaas ay leedahay waa u soo dhoofiyay hooyanimay ku soo kaxaysay sidee ku soo kaxaysay markaas من تبي تشري كرتي مركز إن هذا اللي قياسي كره تتاس وجاذا هو يضعن المهد إن كري سنة وحبذا بأكتهاي لقيا بحناق نيك يسكو حناقين إنه وسمين يسو لك وأوضق النمو ما أنت المهدي وتاجن إني نين أول سوين كرتو قبلها الصوماليات انتو ذا بدن هديات كو فكريسان المال قرين كرا المين ونقرسوم كرين madax soo taagan inaad qarin karin ogo nin inaad u qariso awlaadaadana doqonnimo ku tahay sidan uu soo ogaaday waana la soo heli karaa xaqiiqda maanta Kamaal kitaabka jaamaca gacanta u saaran wuuna ka dhaaranayaa sida ay gabadhaas been ugu sheegtay in isaga uu dulmi yahayna waa wada aragnaa hadda barila daawada inay kaliya xog rasmi ah xog xaqiiqo ah waxa la noo sheegay kulli waxa la lahay boqol qof been isku raaci karto nasti هل أري مسؤول hal eray isku raaci karaan marka wax walbo ku saabsan xogta ahelni maxamuuda ka sheekeen doono sidoo kale anigana wixii hadal gadaal aan ka dhigi doonaa marka maxamuud aan u wareejinaa wallahi been midin sheegay video aan duurin balkoonka joognaa dhaxanta dhacayso wallahi ma leeysan kartid sababtoo gudaha mugdi waay nalkiina waa naga halaabay marka hadda aarwa maxamuud inaan u wareejiyo wax ilaah la og yahay as og yahayna anigana as ii sheeg aan ku raaci asiga ka warama soo dhow maxamuud Soomaaliyeed meel ku joogto dhamaantiin waa salaamaya horta arintan cirka isku shareeraysay dad badan yani Soomaaliya oo dhan bale way ka soo hadashay xoogaa waxa waa dhaxan zaid ah jirtay xoogaa jaakada isku soo bedelay horta sidoo ilaahay la og yahay arinta uga hadlaaya Kamaalna يعني ولا هل كري أنا أنت وحاسمي هرت أنا سمي حريرة وحاسمي أنا يعني بدك أيضا ريليتيف كذا أنا حريرة سمي أو يعني راديو أبينك أنا سيحني مرة كمال أبندقي مرة كمال وحنا عرفت سان لو هذا مرة ما أدينا راديس information مرة واحد يقبر أنا يعني إده هو يسوع قداري وأنا إده هو يسوع يعني ما قبل يعني ما أنا لا قبل عيالنا ما دلين
yacni gabar waa og tahay cillamaa ugu tagaa way dhahay marka anigu marka danta waxay ugu qasabtay inaan ani raadiyo keligay marka ani iyo waa badneen ani iyo marka yar kaloo oo walaalkay maxamed la dhahaa isna waa raadinayay dhinaciisu ka raadinayay marka information wax badana istutusinay dad marka facebook ay dad ayada u dhadhow facebook dad mar hore isla hadashay facebook waa jira dadka dhan waa arkeen mar dad ayada comment ka bixisay dadkaasaa raadiyey mistaqaaniinaan dhahay ilaahay ma kula ogyahay dad ani waxaa raadsanayo oo mas-uuliyiin ah marka ilaahay ma kula ogyahay wuxuu dhahay ilaahay waa ila ogyahay haddaa rabtid waa i sheegi kartaa Here, we know you love what you do. You're focused on perfect. qof dhan oo ilmaheedii qarinaysa ilaahay subxaana wa tacaala soo haday dhalinyarada waxaa lagu sameynaya ama rag ama dumarba inta badan dadka afrika jooga waa la qiyaameeyaa ayagana waxbay qiyaameeyaan muhiimadda waxa weeyaan inaad dhalinyaro isku ogaataan qiyaamada idinku dhacayso waxaa baasaboor idinkoo fiirinin inaad iska hubsataan baa idin fiican wax maanta kamaal ku dhacay ku tusaale qaata hooyada soomaaliyeed ilmaheeda qarinaysana ku tusaale qaadato ilmahaaga ilaahay baa ku siiye ninka waa kala tegi kartaan waad guursan kartaa nin kale waad maaragtay intaad ninkan iska furta ninkan waad guursan kartaa haddaad ninkan aad nacday dhib kuma jiro baniaadmigu waa heshiiyaan waana kala tagaan laakiin ilmahaaga inaad u qariso nin aawadiis ilmahaaga ima qarsoomayaan dad nool oo soconaya ma qarsoomayaan subxaan allah kolley sanadkii 2022 taariikh laga sheekeyn doona noqotay sheekadan taariikh soomaalida soo marta ayay noqotay tan oo waliba naxdina subxaan allah muxuu ka yiri arinta hani kamaal in ay kala tagaan cadeen buu hay laakiin waxaan cadeen u helay in ciyaalka ayaga ay dhashay kulli wax walba qoran waa dhaca wax walba adduunka waa laga arkaa dad badan arkay dhahayaan wax walba adduunka waa ka arkay meel rag oo uur yeeshtay oo ilmo laga soo jiiday la arkaynin saxna waa taas wax walba adduunka waa ka dhaca arrintan social media ay soo gashay social media waxay soo galaan wax qarsan ma aha anigana hal mid aan qoldanahay hal mid ayaa gayn ka bixnaa midaas oo in arrintan markii koow ay cusbeed in aan rumaysan waayo dembi kuma lihida adiga kamaal way ku qiyaanta ilmaheedana iyadaa inkirtay aakhirana iyadaa og meeshay aadi doonto marka dhalinyarada una kugu tusaale qaateen dadka hadda maanta fiirsanaya ha kugu tusaale qaateen intaas baa muhiima adigana waxaa ka yeeri doonta adaa yaqaana kulle waa ogaatayna hadda la qaba naagti ilaahu khayr ka dhig gabdhaha soomaaliyeed qaarkood waxay sameynayaan ilaahi subxaana wa tacaala khayr ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa walaashiina amal alaka ofishiyaa